Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal qodobada bandhigaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Buuhoodle, Rooble oo kala diray gudiyadii doorashada heer federaal, dagaal ka dhacay degmada Afgoye iyo faahfaahin laga helayo, madaxweynaha Ukraine oo booqday jihada hore dagaalka, Joe Biden iyo xaaskiisa oo booqday dugsiyadii weerarka dhawaan oo ka dhacay haddana nagu cusbaan ugu soo bir nala sii joog saaxiibada la wadaag. aynu ku bilaawno saaxiibayaal fadlan haddana nagu cusbaan ugu soo bir saaxiibada la wadaag, YouTube-ka subscribe noo saar, page-ka follow dheh ku mahadsanid. isku soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilaawno wararka naga soo gaaraya magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegayaan in xalay ilaa saaka magaalada ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. xiisadani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii Somaliland ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamo fara badan ay geysay duleedka magaalada Buuhoodle iyadoo oo dooneysa inay qabsato. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Somaliland ay duleedka magaalada Buuhoodle ka wadaan dhaqdhaqaaqyo, halka ciidamo fara badan oo Puntland toddobaadkan geysay magaalada Buuhoodle ay dhankooda wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo isdifaac ah. dadka ku nool magaalada Buuhoodle ayaa qaarkood waxa ay sheegeen inay cabsi dareemayaan maadaama ciidamo iska soo horjeeda dhaqdhaqaaqyo wadaan iyagoo ugu baaqay labada maamul xiisada dagaal joojiyaan. magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa soo martay maamulo kala duwan, hase yeeshee Puntland ayaa hadda ku adkeysanaysa inay ka difaaci doonto Somaliland oo dooneysa inay la wareegto. xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay xilli dambe waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana halkaasi ka dhashay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalkani ayaa si gaar ah uga dhacay Boondiyere, degmada Afgoye fariisimo ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaana dagaalkaasi sida la sheegay ka dhashay dhimasho hal ruux iyo dhaawac laba kale.